Munich waxay shalay oo ay ku beegneed Jimco 19 Juun martigelisay kulan nuuciisii ugu horreeyay kaasoo ka dhacay mid ka mid ah hoolalka dhismaha Eineveld House ee bartamaha magaaladan. Kulankan waxaa soo qaban qaabisay Somali Community oo ka dhisan isla magaaladan waxayna ku martigeliyeen xubno ka socday golaha qaxootiga iyo waliba dalladda abuukaatayaasha gobolka Bayern si ay si toos ah uga jawaabaan qayb ka mid ah su'aalaha dadka Soomaaliyeed ee magaaladan degan. Kadib sheeko kooban iyo xoogaa yar oo hooyooyinkeena iyo gabdhaheena noo suurageliyeen waxaa bilowday ka warcelinta su'aalihii dadka. gabagabada kulankana waxaan si kooban wax uga weydiinay mid ka mid ah qabanqabayaashii kulanka inuu noo turxaan bixiyo cidda ay tahay Somali Community. Anaga Somali Community ahaan waxaan ka mid nahay community-yada ka dhisan magaalada Munich oo Selbis Health Group ah oo macnaha waxa waaye Freiwillig u shaqeeya maadaama Soomaali badan waddankan ay joogto waxay u baahdeen in laga turxaan bixiyo arrimaha la xiriira sharciyada arrimaha la xiriira citizenka si macnaha waxa weeye waraaqadaha Soomaalida aqoonsigooda la diiday iyo waxyaabo noocaas ah ayaa Soomaalida magaalada waxay soo jeedeen inay u baahan yihiin in loo yaradii lagu xiro si macnaha waxa weeye ay su'aalo u weydiiyaan maanta sidaas aan sababtay inaan maanta aan halkan keeno loo yarinta. Ramadaan Axmed oo ku magac dheer Xasan Ji oo isna ahaa turjubaankii kulanka ayaana la hadlay. ما شاء الله مركز waxaan u mahad celinayaa dhamaan dadkii barnaamijkan aad ka quruxda badan oo iskugu jiray qayb culture ah oo markii hore intaan waraysiga la bilaabin iyo qaybta labaad ee su'aalaha Soomaalida toos looga jawaabay dadkii soo agaasimay aad baan ugu mahad celinayaa community-gan faraayinka soo sameeyay aad baan ugu faraxsanaa dadka ka soo qayb galay iyo su'aalahoodii si dhamaantood looga wada jawaabay. Xasan Ji wuxuu sidoo kale ka falceliyay kulankaas iyo wixii uu halkaas ka kororsaday. aniga barnaamijkii ugu horeeyay aan ka qayb galay oo lawyer intii la keenay su'aalihii ugu adadkaa iyo dhibaatadii Soomaalida haystay looga hadlay waa jawaabo aniga xitaa aanan ogeyn jawaabahooda ayaan maanta meesha ka ogaanay aad buu muhiim ugu yahay wax badan oo isku dhaxyaacsanaa ama aan la fahansaneyn ayay maanta lawyerada nooga soo jawaabeen mar halkeen waxa la qofka cilmiga leh cilmiga la weydiiyay marka maanta waxa yimid dad cilmigan leh lawyera yimid wax badan bay dadkii yimidna ka faa'iido Soomaalidana u baahan tahay inuu sii socdo weeye macnaha fadhigan sida u dhacay maanta su'aalaha maadaama aad u badnaayeen oo jawaabahay aan la wada dhameystirin waxay la tahay inuu la badiyo oo ugu yaraan sanadkii 3-4 jeer la qabto bay la tahay si su'aalaha Soomaalida dhan qabaan oo iskugu jiro sharciga ciyaalka waxbarashada kolba intii la keeno qof cilmigaas leh su'aalo toos loo weydiiyo macnaha wax loo baahnaa waxaan rajaynayaa inay organization ka sii wada doonaan. dhibkan Soomaalida dalkan degan ka haysta dhanka aqoonsiyada shahaadooyinka iyo waliba dukumeentiyada rasmiga ah ee dawladda ka soo baxa inay yihiin wax soo jireen ahaa ama hadda ku cusub Soomaalida waxaa nooga jawaabay Cosoble oo ah oday Soomaaliyeed oo degan dalkan ku dhawaad 45 sano. xilligii dawladdii hore ee Soomaaliya shahaadooyinka laga keeno shahaadooyin la aqoonsan yahay ayay ahaayeen burburkii dawladda ayaa wuxuu keenay in shahaadooyin been abuur ah dad loo sameeyo ay been abuurkii oo farabato wixii 91gii ka dambeeyay shahaadooyinka Soomaaliya oo dhan calaamati su'aal ayaa saarnaa baasaboorradan sidoo kale wax la ictiraafsan yahay ma aysan ahayn marka caqabad dheer oo culus ayay ku ahayd dadkii Soomaaliyeed ee wax soo bartay ee shahaadooyin rasmiya sitay waliba qaarkood dibadaha wax ku soo bartay oo Talyaaniga ku bartay oo Ruushka ku bartay oo maaragtay Romania ku bartay oo la cadeyn karo inay yihiin shahaadooyin sax ayaa lagu diiday maadaama ay Soomaali yihiin marka caqabadaasi ilaa laga bilaabo 1990kii waa ay jirtay Soomaalidina hadda way soo badatay markay soo badatayna waxa ay iska dhaadhacsiiyeen wali shahaadooyinka iyo warqadaha ay wataan kuwa jira ma aha marka arrintaas waa arrin muddo dheerna haysatay laakiin safaaraddaanu la hadalnay safaaraddu waxay noo cadaysay nagu tiri cidda warqadda diidda xafiiska markaa tartid zakhbi arbaaitaha joogo ka shaqayna hadduu ku yidhaahdo keen warqada keen
inaad tiraahid qoraal si aan safaaradda ula tago aan warqadihii ku keeno haddood warqadihii geysow kaa diidane inaad tiraahid qoraal si waxa aad ku diiday warqadan dabadeed waxbaan tallaabaan qaadi karnaa macnaha caddaynaan ka haynaa maadaama aan dowladda sare ee baayar la hadalnay oon la heshiinay in ay warqadahi naga aqbalaan Kruisbewaaldunku waa arrin asaga oo wato arrintaas sidaa awgeed sidaan meel ugu soo xirno waa in aad caddayn ka qaadataa hadduu ku yidhaah warqada keenna aad warqada la timaadid haddii uu ku yidhaahdo warqadahaadana ma ogoli aad tiraahid waxa warqadahayga aad ku diiday caddayn isii caddayntaas ayay u baahan tahay safaaradda dabadeed ayagaa la xaajoonaya arrintaasaan meel isla dhigno sidoo kale cabdiweli ciid wuxuu nooga warramay waxa sababay inay qabanqaabiyaan kulamada nuucan ah annaga Soomaalidan waxaan ka mid nahay dadka community-da ugu badan oo ku nool magaalada Munshin waxaana yaraa dhaqdhaqaaqa aan la leenahay ama contactiga aan la leenahay dawladda markii aan community-ga aan sameynay waxaan raadinay link aan dawladda aan isku xiri karno linkigiina waa soo helnay saas daraadeed room-kan ama qolkan aan joogno waxa weeye in maanta aan practiceynay inay Soomaalidu ay isku imaadeen oo saacadii u horeeyay ka dhigno kultuwa room aan ka dhigno oo waxa weeye Soomaalidu ay kala xog qaateen labadii saac u dambeysana su'aalihii looyarada la weydiiyay sidii la rabay uga jawaabtay ayna ayadana noo sheegtay inay macnaha waqti walba oo anaga u baahanay in ayada diyaar noo tahay waxa weeye Soomaalidana waxa leenahay soo dhawaada meeshiini waaye mideeda kale xaqi idinka maqnaa oo sharciyada ee dhan walba waxa lagu gaari karaa gimaynsan looyarada waxay noo sheegtay waxa kamid ah in la sameeyo mudaharaad oo waxa weeye dad Soomaalida ay mudaharaadaan oo ay ka doodaan waxyaabaha dhibaatada haysata Soomaalidana waxyaabahaas aad iyo aad ugu yaraayeen qof walba kaligiis loo yari wax uu qabsanayay marka Soomaalida hore wax ugu maahda fal kaliya fool ma dhaqdeen si gimaynsa ama xaq naga maqan anagu istaadka inta banaanbax weyn ka soo qaban qaabin waa dhiga karnaa oo dawladdu ay waxa weeye diyaar u tahay ugu doodayno in la aqoonso waa identity-keena iyo sharciyadeena oo aan uga doodi karno waana arrin aad u sahlan Soomaalidana waxaan ku bogaadinayaa Munshin iyo nawaaxigeeda ku nool inay gacmaha isqabsadaan in waxa weeye anaga ahaan Soomaali community ahaan inay la soo xiriiraan oo waxa weeye wax walba fikrad walba ay la imaadaan anagu diyaar u nahay inaan socodsiino qof walba oo Soomaali ah ku dhaqan nawaaxiga Munshin iyo nawaaxigeeda anaga faraayinkana hershish filkama soo dhaweynaa waxaan wax ka weydiinay haddii ay jiraan barnaamijyo kale oo ay qabanqaabadooda ku guda jiraan sanadkan waxaan diyaarinay xaflad aad u weyn oo ugu dabaaldegayna kooda luuliya oo aan ku casubnay Soomaalida ku dhaqan magaalada Munshin iyo waaxigeeda si ay habeenkaas ay u dabaaldegaan habeenkaasna waa habeenka 27 bisha oo sabdigu ay macnaha axad soo galayso galabnimo sabdi ah inay hadda meeshan aan joogno hool kamid ah oo ku yaala inay ku dabaaldegaan ugu dabaaldegaan xornimadii ku soo wareegatay xilligii ay xornimada ay qaateen dawladda Soomaaliya sidaas la mida waxa anaga Soomaali community ahaan aan u diyaarinay dhalinyarada sportska sidoo kale inay macnaha sports ay u qayb galaan in macnaha waxa weeye xafiiskeena inay yimaadaan oo ay ku qabsadaan xaflado inay taref bunta ka dhigtaan sidoo kale halkan maanta aan iskugu nimid waxay dawladda noo ballan qaaday yiraahdeen waxa idin siinayna bishii hal mar in Soomaalidiina ay timaado oo waxa weeye ay ku xog wareysi ay wax ku sameeyaan taasna ay joogto ay noqoto ayagana marka walba ay u baahdaan ay nagala soo qayb gali doonaan kulamada noocan oo kale ah ugu dambeynna waxaan u mahadcelinaynaa Cosoble oo isna dhankiisa dadaalkeena dhiirigeliyay idinkuna waa mahadsantiin sida aad u tihiin bahda saxaafadda maaragtay aad iyo aad anigoo ah saxafi qadiima oo duqoobay maanta waxaan maaragtay aan leeyahay ilaahayna ugu mahad celinaa dhallinyaradiina yaryar ee hadda soo baxday ee dadaalka ku jiro inuu ilaahay dadaalkiina idiin sii kordhiyo oo dadaalkiinu noqdo mid meel dheer gaaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu